Warum ist uns Afrika so wichtig? hogaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa ugu baaqday shirkadaha caalamiga ah inay maalgashadaan qaaradda Afrika. Waxa ay sheegtay in dhaqaalaha qaaradda Afrika uu si weyn u kobcay. Angela Merkel ayaa hadalkan ka sheegtay furitaanka shirka maalgashiga ee magaalada Berlin, halkaas oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah hogaamiyayaasha qaaradda Afrika. waxa ay ka sanqadhisay Angela Merkel baahida loo qabo in xiriir ganacsi oo xor lala yeesho qaaradda Afrika. mar ay arrinkaasi ka hadlaysay waxa hadalladeedii ka mid ahaa: Warum ist uns Afrika so wichtig? annagu ka xukuumad Jarmal ahaan waxaanu samaynay oo dib u soo celinay sidii aanu u sahli lahayn ama u fududayn lahayn waxqabadka. waxaanu abuuri doonaa sanaaduuqda horumarinta maalgashiga ee ah kuwa ganacsiga yaryar iyo weliba kuwa ganacsiga dhexe. labadeenuba waa Afrika iyo Yurube. marka laga hadlayo sanaaduuqdan maalgashiga, kasoo qaybgalayaasha iyo lacagaha amaahda ah waxaa lagu maalgelinayaa si awood loogu yeesho tusaale ahaan bilowga suuqyo cusub. Afrika annaka muhiim ayay noo tahay sababtoo ah waa jaarkayaga marka khariirada adduunka laga eego. waa sababta aan u xiiseynayno qaaradda Afrika. Afrika waa qaarad qani ah marka loo eego khayraadkeeda. hadalka hogaamiyaha waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa ku soo beegmaya xilli waddankaasi Jarmalka uu doonayo inuu ka hortago muhaajiriinta badan ee Afrikaanka ee ku sii qulqulaya waddankaasi Jarmalka. ka hor shirka wasiirka horumarka ee waddanka Jarmalka waxa uu sheegay inay maalgelin doonaan beeraha, waxbarashada iyo xarumaha caafimaadka ee qaaradda Afrika. shirka magaalada Berlin waxaa ka qayb galay 12 hogaamiye oo uu ku jiro ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa iyo kan Rwanda Paul Kagame. laakiin goobta kama uusan soo muuqan madaxweynaha waddanka Soomaaliya oo hore uga qayb galay shirkii maalgashiga Shiinaha iyo Afrika, balse hogaamiyayaashii ka soo qayb galay shirka ayaa ku soo bandhigay sida qaaradda maalgashi loogu samayn karo. Saciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.